maalin maalmaha ka mida waxaa jirtay oo cunug masaajidka aan kula kulmi jiray maqrib iyo cisha inta u dhaxaysa. Cunugaasi dhowr iyo 10 jirka ahaa quraan ayaa la baray 5 sano ayuu dugsi ku jiray quraanka meel buu ka gaaraa mar walbana waa lagu soo celiyaa. cunugan caqligiisa waa taam, ilmaha kale uu lacag haduu ka caqli badnayn waa isku caqli, hase ahaatee wixii hadda aad u mariso hadda u akhriso haddana waxaa laga yaabaa waqti kadib iigu celi inuu ku dhaho. waxaa kaloo dhacda iyadana oo caruur badan oo noocaas oo kale liigu keenaa. mid ka mid waxaa ka mid ahayd mid uu waalidkiisa ii keenay oo cunug maaragtay waxbarashadii xagga dugsiga xagga iskuulkaba si la ragay aan ka gaarin oo ku liitay, walaalihii kuwii ka yaraana ay ka kormareen. cunugii xoogaa markaan ka wada hadalay arrintii wuu iska ooyey, arrintan in laga hadlana wuu aad uga xumaaday. caruur fara badan oo noocaasaa jirta oo laga yaabo adiga inaad la kulantay cunug la leeyahay cunugaasi waa doqon, macallinku uu ku leeyahay cunugaadu ma dadaalahayo, cunugiina dadaal iyo juhdi aad u fara badan uu gelinhayo. juhdigaasna waxba miro uu ka dhalaynin xagga waxbarashadii xagga akhriska markii la dhaho. laakiin cunuga sida kale markaa u fiiriso caqligiisa iyo taam wixiisa kale uu taam yahay. ciladani waxaa dhici karta inay tahay cilad la yidhaahdo dyslexia. dyslexia-da wadamada oo baxfiga laga sameeyay sida Maraykanka oo kale waxay sheegayaan 5 cunug mid ka mida inuu ciladan dyslexica uu qabo. ciladan dyslexica ilmaha qaba markay primary schoolka ay bilaabaan secondary-ga ay galaan 35% caruurta noocaasa iskuulka way ka cararaan. 70% dhalinyarta samaysa dembiyada samaysa xabsiyada ku jirta waa dhalinyar waxaa waay dyslexi qabta. 100% waxaa lagu qiyaasaa 40 dadka daroogada bilaabana inay dyslexic yihiin. maxaa marka sababa ay u bilaabaan? ciladan dyslexica waa wax yar oo xanuun aan saa usii weynaan oo wax yara. dadkan actually badankoodu way ka caqli badan yihiin sidaa arki doonta ilmaha kale, laakiin se markay buugaagtii akhriska noqoto ciladiisa maskaxdiisa qaybtan weliba bidixda wax yar connectionka ama qaybta laga rabay wixii dhawaqa ahaa inay ugu bedelaan qoraal ay u bedelaan ama qoraalka ay dhawaq u bedelaan waxa phonetics loo yaqaan cilad yar ka qabaan. oo haddii si kale loo fiiriyo si kale loo tacaamulo caruurtan waxay noqon karaan caruurta ugu khatarsan. hase ahaatee systemka educationka waddankeena ka jira ama haddii aan la dadaalin cilad ama disadvantage ay caruurtan ku tahay. waalidkii ayaa culays saarahaya oo canaananhaya oo caynhaya, walaalihiis ayaa caynhaya, ardadii iyo maxaa la dhahaa studentska isla joogeen ayaa iyakana ku caynhaya ama iyakiiba culays saarahaya le markay natiijo ahaan natiijadiisa maadaama ay fiicnayn damiinaad tahay caqli ma lihid. macallimiintii sidoo kale way ganaaxayaan way garaacayaan. cunuga marka dambe mental breakdown ku dhacaya, maskaxdiisa wuxuu dareemaa inuu zero yahay, inuu ilmaha kale oo dhan iyo dadka kale oo dhan ka liito. meeshii muu ka cararaya ama gangsuu galhaya ama drugsuu galhaya ama uu ka cararaya xabsuu samaynaya. ilmahan ayagana saan aad ogaan doontaanba xanuunkana ninkii scientistiga ahaa oo nuclear bombka soo saaray qarnigii lasoo dhaafay oo 20th century-ga yahuudiga ahay Albert Einstein la dhihi jiray, wuxuu ahaa nin dyslexic ah, wuxuuna noqday scientistiga ugu khatarsan ee ilaa hadda magaciisa mid la mida uun soo bixin. ninkii feeryahanka ee Maxamed Cali la dhihi jiray ee taqaanaan idinkaba dad badanna soo muslimiyey, feeryahannimadiisana ilaa hadda wax u dhigma uusan jirin, dyslexic ayuu asagana. ninkan ingiriiska oo Virgin Atlantic Airline la dhaho iskale haddana Virgin Galactic la dhaho oo cirka aadaysa bahasha soo saaray company-ga iskale ee Richard Branson la dhaho, asagana ciladan dyslexic uu qabaa. maxaan ciladan soo saarayna? waxaa la sheegay in dadka scientistiga 50% ay yihiin dyslexic, ganacsigana ay ku fiican yihiin 40% dadka ganacsigeena milyan dheerta ayagana dyslexic yihiin. dadkan marka ayagoo cilada qabaan disadvantage-ka iskuulka ku qabaan oo laga yaabo inay aad loo liidayo, haddii ay helaan sida saxda ah ma aragtay wax ayagana naajagareeyo oo u dadaalo waalidiinta iyo macallimiinta iyo the right environment hadday helaan waxay noqdaan dadka ugu fiican. siyaalo lagu daaweeyaa jira, waxay u baahan yihiin ilmaha noocaasa cunugaada ma ogid ma cilad kalaa jirta, cilado badan oo kale waxbarashada saameyn kartaa jirta, ma ciladan uu qabo ma cilado kalaa jira. marka waxaan idinku boorinayaa inaad dadka khubarada u leh, dhakhaatiirta caruurta weliba arrintan ayada khubarada u leh ama developmental pediatricians la dhaho inaad u geysaan. waad noo keeni kartaan meeshay noqdaanba si caruurta loo ogaado cilada keentay iyo waxa ay tahay
iyo sida loola tacaamuli lahaa. Wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.